Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalahayga Soomaaliyeed meel kasta aad dunidan ka joogtaan soo dhawaada. Waan rajeynayaa meel kasta aad dunidan ka joogtaan inaad caafimaad qabtaan, farxadna aad ku nooshihiin. Fadlan waxaan kaa codsanayaa haddii aad channelkan ku cusub tahay inaad subscribe saartid, gambalaalkana aad furatid si aad u heshid muuqaal kasta ee aan soo gelino. Waad mahadsantihiin. Ku soo dhawaada muuqaal cusub. soo dhawaada mar kale dhammaan asxaabteena sharafta badan ee ku xiran channelkeena. Maanta waxaan doonayaa inaan muuqaalkaygan kaga hadlo dhowr arrimood oo ah furaha guusha, ama haddii aan si kale u dhigo 5 sirood ee aad guul kasta ku gaari kartid, ama hadaf kasta ay leedahay aad ku gaari kartid. Marka koowaad waxaan ka cudur daaranayaa anigu ma ihi ustaad, mana ihi nin cilmo sare leh, balse run ahaantii iniga ayaa iga cilmi badan. Waxaan jeclaystay oo keliya waxaan khibrad u leeyahay ma wax yar ee aan garanay inaan walaaladii Soomaaliyeed meel kastoo joogaan aan la qaybsado. Marka waa ku mahadsantiin. Muuqaalkan waxaan gudagalaynaa 5 sirood ama 5 sirood ee guul kasta ama hadaf kasta leedahay aad ku gaari kartid. La socod wanaagsan. Arrinta koowaad ama lambarka koowaad ee aad guusha ku gaari kartid waxaa weeyaan tirada isku daygaaga. Run ahaantii waxaa muhiim ah qof kasta markuu doonayo inuu guul gaaro inuu guul dareysto. Waxaa badanaa dhacda inuu guul dareysto. Marka ma ahan haddii mar guul dareysatid, mar labaad guul dareysatid, mar saddexaad guul dareysatid inaad macnaha iska quusatid. Laakiin waxaa muhiim ah had iyo jeer inaad ku celcelisid. Akhiiran waxaa imaanayso inaad ka dhabaysid oo waxaad doonaysa aad gaartid. Soomaaliduna waa tan tiraahdo doonaa wuu gaaraa. Marka waxaad ku celcelisid oo aad isku daydid waa muhiim, waana la hubaa haddii ay kaa go'an tahay oo aad ku dadaashid waad gaaraysaa. Taasaana kow ka ah furaha guusha lagu gaaro. Marka lambarka koowaad waxaa weeyaan tirada isku daygaada, waa inaad tiro badan isku daydaa. Haddii aad doonayso inaad guuleysatidna waa inaad marka hore ku talagashaa inaad guul dareysan karto. Lambarka labaad, isbedbeddel sameey oo beddel habkii hore iyo xeeladii hore ee aad ku guul dareysatay. Isku day inaad la timaado xeelad cusub. Markasta isku day inaad ogaato sababta ka hortagsan guusha. Markasta oo aad isku daydo inaad ogaatid sababta ka hortagsan guusha, waxaa kuu fududaanaysa inaad saxdo qaladaadkii hore ee aad ku guul dareysatay. Ugu dambeyntii ha ka quusan inaad guuleysato. Ugu dambeyntii waxaad gaari doontaa guul. Lambarka saddexaad, 100% aamin inaad gaarayso hadafyadaada. Marna ha quusan oo ha niyad jabin. Iska ilaali inaad isdhiibto inta aad ka gaarayso guushaada iyo hadafka leedahay. Lambarka afaraad, bara sababta ka dambeysa guul daradaada. Markasta oo aad guul dareysato, waxaa kuu siyaadaysa khibrad cusub iyo aqoon cusub aad hore u lahayn. Balse markasta waxaa muhiim ah inaad ogaatid sida aad xal ugu heli lahayd sababta ka hortagsan guushaada. Haddii kale weligaa guul gaari maysid. Marka markasta waa muhiim inuu qofka ogaado waxa ka qaldan oo guusha ka hortagsan siduu xal u helo. Nambarka 5, noqo mid niyad ahaan iyo nafsad ahaan u diyaarsan. Dadka way ku dhaleeceyn doonaan, wayna kugu maadeysan doonaan, wayna ku niyad jebin doonaan, waxayna shaki kaa gelin doonaan kalsoonida aad ku qabto nafsadaada. Si aad taas uga taxadartid, waxaa muhiim ah inaad niyad ahaan iyo nafsad ahaan u diyaarsan tahay. Waa walaalkiin Maxamed Amiin oo ina leh waa talooyin wax ku ool ah iyo wacyigelin guud inoo sheer gareeya